بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسن داوديال كسو دوادا برنامج جارة أما ورئيس جارة أو مانتا مرتي إنه هي مدن عبد الكريم شيخ موسى قلب الدجح وطبعا مركا مجلس الشيخ عن هو إن أدمانتي ولا جرنا إنسان قفك وياهي عبد الكريم شيخ موسى أما هالجمع عبد الكريم شيخ موسى وطبعا قلب الدجح كم قدر هذا وهوجانك garsoorka ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya dabcan waana halgamaa Soomaaliyeed oo dad badan oo Soomaaliyeed runtii ay garanayaan gaar ahaan sanooyinkii ugu dambeeyay aad bulshada Soomaaliyeed dhaxdeeda magac weyn ugu lahaa halgamaa Cabdikariin farxad bay noo tahay inaan kula kulanno ku soo dhaw Steve okay waan soo dhawaad waxa su'aalo kooban ma ku weydiin doonaa hadii rabbi qadaro runtii deegaha Soomaalida kuma cusba magacaagu hadda waxaad ku sugantahay magaalada Nairobi bal ugu horeyn سفر كذا نيروبي كجوكتا محمود دارين. بسم الله الرحمن الرحيم. من سفر كي وحوها قرابة سلام. هي الكيبة يجي تشوفه ماشي. مركا حنصو جاري. قرابة سلام بارين. مركا قف سياسي أنت بدن لو رئيسنا يوحى سؤاله هو الرئيس اللويدية وتاريخ ذا قف كاسي اللويدية. تاريخ هذا تذكر الصومالية وحموجة شيء كرتا أنت أكيد قانون موين أنت كان. نو نصيب وناك تاريخ تيدو نط Soomaaliyeed way akhriday هذه horey baa looga sheekay laga soo bilaabo yaraantaydii waxaad moodaa inay dadku la socdeen habeenba meeshaan u hooyanahay shaqooyinkan qabanayay هذه waxyaabahaas oo dhan aad bay Soomaalidu ula socotaa marka meel lagaga noqdaba had ma wala haba wax ay ka tageen مجرو وسيد الله شيء تاريخ ذا سان لها تاريخ ذا يدونا وحي أبضن تهاي انت هذا بدن هالجنب يبضن تاريخ الجنب بيبضن لقصوا بالله إذا ما الصومالي حل جودي لما يسلف وجبهة يقولون دونك صومالي قلبك وهو أنا لف intaas oo dhan waa soo maray sidoo kale qayb waxaan ka ahaa kililkii ugu horeeyay wadanka ogaadeenaya laga dhisay si sharci ah shacbigiisu soo doortay na qayb baan ka ahaa waxaan ahaa taliyaashii booliiska xilligaas waanaha marka halkeed ka ahayd booliiska xilligaas waxaan joogay gobolka Wardheer yaan muddo yaan joogay مسؤول كها إذا ماذا تشوي مالا كلام ما كسر طبعا مالا كورسين وحنا كجسوا بحي مالا كلام دير الدبي كمديه مركا ما كسر شقي مدة أفر سنة واحد من يا بوليس كشقي قضينا ضمين با وأنا كسر شقي كل الكوري ولا سو شقي شقوي كانوا ما كسر قبته أنت صورنا ومسلسل على الصومال ذوي بتقانا والريد وصفة بالوية آديات ورئيسي إنه حضرنا دونا ملك الدول وطبعا قبل كي الصومالي ده موجودين أنت بدنا ودك على ما يصير مرحلة هاد وكسوي هاي وحياة بدنا أو سياسة الجبهة ده وأنا يمن دونا سؤاله واحد شراء أنت بدنا ضدك الصومالي مسكحة ده أدوج وحياة إنك استو مرة كقاركود سكوبان أدوج هذا الشيء waxaan jeclaan lahayn in aad maanta faahfaahin balbadan aan ka helo waa qabashadaadii iyo maaragtay dhiibistaadii iyo arrimihii la xiriiray dhaxmaray adiga iyo dawladda Soomaaliya sidaan ogahay ama aan wada ognahayba runtii qadiyadaasi meel adag bay gaadhay oo dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxay noqotay arrin saameysay gaalkacay in laga qabtaan weyn yaa ku qabtay qabashadaydii gaalkacyo horeyna waan uga hadlay waxaa ay qabtay nabad sugidda ciidamada Soomaaliya hay'adda nabad sugidda NISA yaa ay qabatay hotelka aan joogay marka lagu qabtay ma amar ka yimid madaxa sare ee NISA ahaa mise amar wuxuu ahaa markaas taliyayaasha meesha joogay iyo ciidanka meesha joogay ee amniga ku sugayeen ay kugu qabteen waxay ii muuqatay markii aan qiimeeyay sida hawlgalku u abaabulay hawlgalkan inuu ahaa waajib ciidankan la soo siiyay aniga soo ka baxay xamar airportka markii hore sii marahayay waa lagu joojiyay markii hore daqiiqada dheeraada
markii hore magaalada sii galaysay aan airportka xamar sii gelay international aadan cadde airport markaan sii geliyay daqiiqada intii hore ka badan dadka markaad gaalkacyo si dhoofaysa gaalkacyo si dhoofay waa la sii joojiyay shaki wuu igu jiray sababta la ii celinay marka su'aalaha kaamerooyin badan bay u dhacayay shaqo culus baan u socday waan ka baaqan lahaa shaqadaan u socday aad runtii muhiim u ahayd shaqo halgan bay ahayd oo u socday oo aan ka baaqan karin laakiin dareenkaas wuu igu jiray daqiiqadaha dheeraadka ee meesha lagu hakiyay kaamerooyin badan oo ugu dhacay aniga keligii baa la hakiyay wax ka badan wax 5 daqiiqo ka badan la 7-8 daqiiqada yaa laga hakiyay mobilada laga haysta xataa oo mobilada saxanka ay ku soo wareegayeen yaa laga hakiyay dhaxda lagu hayay ma ahan aniga ilaa halkan taagno mobiladayda la hakiyay mobilo badan waan watay mobiladii waa la hakiyay aniga meesha istaag baa leeyahay daqiiqada dheeraad ahaan taagna sidaa waan ku baxay markii aan sii maray airport markaan sii galay kaameradan ugu dambaysa waxaan ugu yimid ilaa 2 qof oo dheeraadka ah qofkii loogu talagalay inuu qaado kaamerada yaan ku sii arkay oo meesha ku arkay dareenkaas uu igu jiray haddana anoo shakigaas qaba yaan safarkayga sii watay runtii ay iiga muhiimsanayd shaqada aan u socday xilli adag oo xasaasiyaan maraynay oo halgan ku marayay aad iyo aad u adag marka nooc waxaan iskaga socday ismiidaamina wax aad xiriir lahaydeen oo saraakiisha dawladda ama laamaha dawladda ama jira markaas xilliga markaan anigu baxayo waxaan oo wana la fahayn aad xiriir la lahayd oo xiriir la lahaa ma jiro waliba intii ila joogtay annaga shir xubno golo dhaxo meesha aan sugnay baanu shir ku qaadanay shirkaas waxaan ku qorsheynay hawlgallo muhiim ah inaan markaas inaan ku dhaqaaqno yaan hawl qaybsi baan sameynay marka intanadii go'aanka gaadhay cid kale binaadamku ma intanada oo baa isoogeyn cid kale ismeedan ogeyn xataa xaafadaha iyo 2 xaafadood baa meesha iga deganaa midda subaxdii aan xaafadan ka baxay waxaan u sheegay inaan gaalkacyo ka soo noqonahay 2 bari kadib hadii ilahayd marka hawl sidaas ay ahayd degdeg oo aan sii shaacinin waaya hotelkii aad deganeed markii lagu soo gargaraacay lagu yimid maxaa dareentay macnaha arrinta hore aad sii ogay horta markii hore aan soo galay magaalo layga yaqaan gaalkacyo dhanka koonfur baan u soo gudbay oo dabcan sidaan islahaa ay ku yaraayeen sirdoonka Itoobiya anagu aad uga cararhay oo ka warwareegay meelaha u badan yihiin marka labada dhanba waan u filahayay inay sirdoonka Itoobiya ay joogaan iyo ciidamo ay leedahay laakiin dhanka waqooyiga yaan u maleynayay inay u xoog badan yihiin marka kiiban ka soo wareegay waan ka leexday dhanka kale yaan u wareegay diyaaradda markaan ka soo baxay baabuurka iga soo qaaday airportka waxaan ku wareegay dhankaas yaan u wareegay waqti aan filayo habeenkii 8 fiidnimo 2 saac qiyaasta anoo qolkayga ku jira oo iska dharyaraystay oo sii seexan rab taan shaqooyinka qabtay waxaan filayaa ma huba inay 2 saac laakiin 2 saac bad meelaha inay tahay baa suuragal laakiin markaa chief isu diyaarinay waan is diyaariyay inaan tan iska seexdo shaqooyinka iyo wixii waan la balbalamay dad baan la shaqeynayay intaan la balbalamay yaan iska seexday war waxaan rabay inaan haddana 11 markay tahay inaan dib shaqo kale u bilaabo ay qorshaysnay oo ballaman lahaa 5 saac inaan haddana dib kale dib u bilaabo shaqo kale marka inta u dhaxaysa rabay inaan nasto yaan doonay waxaan xusuusanahay markii la igeeyay meeshii ay iga qabtaan intay xayaan meel kale ay geeyeen saacadan fiiriyay 3 saac ba oo gawa ha marka waa waqti fiidaba aadiya albaabkay soo gargaraan si xoog ah iyo soo garaacay oo muddo in bir lagu garaaca iyo soo garaaca marka anu maxawis xiran maxawis markii dambe caan noqotay oo guduudmeyd iyada lafteedu taariikhda gasho mar indhaha la iga xidhay oo mar gacmaha la iga xidhay madaxa iga xidhnay diyaarada laga saaray maxawisaasaan soo xidhay iyo funaanadu agayada dharkii kale uu iska yaalay
marka kabihii ma qaadan anoo cagcad baan albaabkii furay waxaan ku yidhi warwaa kuma bahalka garaaca badan ka yare markaan furay waana dareensanaa runtii waa saas oo waan gartay inuusan wax caadi ahayn garaaca noocan waan fahmay waan furay ciidan baa marka qoriyo igu hayo aada u qayliyahayo runtii aan akhlaaqiyaad ahaan u dhisnayn disciplineka ciidanka iyo moogta ciidanka howlgaladiisa waxaa fiican inuu nooc iska maarata akhlaaq fiican yihiin oo ciidanku buuqna una lahayn aamusan ciidan aamusana waajibkiisa qabsan kara inuu yahay xishoonahayo inuu yahay marka dad dhawaaqahayo diinta caayahayo gacmaha kahor taag hooyada diinta waxaa sameeyo buuqahayo ilaa maarata 4 qof meelahaas markaasa waxaan ku idhi warma hubaysni qaylada intaad yaraysaan ila hadla fadhiisa igu yidhahday waan gartay sas badan baa ku jira marka qaarkood kulluq ku jira xagga mid baa ku jira suuliga meelahan suuli meel ii dhaway ahayd oo banaanka waxbaa ku jira xagga aashiisa mid baa ku jira way wada kala jeedsadeen ha marka tirada igu dhow waa 4 meela kalena waxa ka muuqdo kuwa kale yaa taagtaagan oo iyaguna marka warbal fariista igu yiraahdeen waan fariistay markaasay mid aan hubaysnayn yaa soo kacay gacantu ay qabtay markaasuu istaagay koox baa isugu keentay marka gacmaha ay qabteen xoog ay qabteen gacmaha way gacmaha dib iyo xagga dambe gacmaha iyo xidhan markaasay beer ii rideen markaa jirdil bay ugu bilaabeen qoriga dabadiisii iyo kabihii madaxa dhinac bay ugu bilaabeen qabbo marka lama hadlin markii dambe waxaan ku yidhi miyaad taqaanaan baan ku yidhi kuma naqaanay dheh haddaydan aqoon maxay ii jirdilaysaa baan ku yidhi qofkaan hayba haddaydan garanaynin maxay ii jirdilaysaa waxaan dareemaya dad marka sas iskaga jiro inay ahaayeen waa xilliyada dambe ciidamadeena runtii iska soo xaabsi ah waa saas dad mooryaan iyo ka yimid iyo dad maaragtay aqoon daran iyo dad aan tababar fiican lahayn iyo isaga badnaa buuqa faraha badan iyo waxaasoo xagga diintuna kuwa yar tahayba waa saas soomaalida baryahan dhalinyaradii iyo waxyaaba xilligii mooryaanayn waa la iska lumay oo aqoontii waa laga tegay maadigii iyo diinigii wax badan baa lumay marka waa laysoo kaxeeyey anoo gacmaha ka xidhan katiinad baa lagu jabiyey baabuurkii baa marka waxaa la damcaa intii saa la ii qabto sidan oo kale in sida kubaddi loogu tuuro in la ituuro sida jawaankii baabuur qabaala laygu tuuro nin fiican baa aan ugu nimid baabuurka ninkii wuxuu ka daaya baa ninka burburinine soo geliya shirka anoo marka katiinadii ku xiran laba dib loo xiran katiinad igu dhegantay aad waxaan ku loo aad bay igu roortay dhaqdhaqaaqa igu sameynayeen jijiid yaan galay baabuurkii xagga hore la geliyay waxaan u arkayay nin runtii wax badan ii qabtay inuu yahay oo ka naxariis badan oo ka dhaqan fiican qoladan kale ciidannimada ka muuqata ciidannimada haa ilaa xad waajib buu qabay mooyaane nin Soomaali ah fiican buu ilaaha magaciisa ma garanaysaa ninkaas ma garanayo laakiin ragga gadaal waan ka barbartay magacahan waan u qiyaas karay laakiin si toos uma garanayo inuu hebel kaan garanayay inuu ha meeshii baa la keenay qolo marka waxaa igu timi meeshii dhowra waraysi bay dacaan iga qaadaan toosh bay igu bixiyaan indhaha markaasay indhaha hoos u rogtay waxay igu yidhahdeen dhowr fiiri tooshka igu yidhahda waxaan ku yidhi ma fiirin kara indhaha xanuuna fiiri buu yidhi camera ku haysa camerada fiiri ma fiirin karaan ku yidhi intaa ka badan ma fiirin karo magacayga i weydiiyeen magac aan magacayga rasmiga ahayn yaad u sheegtay qoladayda i weydiiyeen qolo maatay bay yidhaahdeen
qabiilkaygan waanu sheegay waxaa badan oo kale markii i weyd maxaad ka shaqaysaa ima odhanin xagee ka timid ima odhanin intaasay yidhaahdeen way iga tageen 2 nin baa ii timid markaasi waxay igu yidhaahdeen xaggee deganta meeshaad degan tahay noo sheeg markaasaan ka hotelka adiga soo qabateen yaan deganaa xageed ka timid bay igu yidhahdeen waan deganaa waan ku yidhi meeshu waan deganaa miyaadan xamarka nin bay igu yidhahdeen waan ka aamusay su-aalo aan macno lahayn oo dhex yaacsan bay igu weydiinayeen isaga aamusay marka waa meeshii yareed qolkeeda gudaha waa qol gudaha oo aad u wasakhaysan oo kanaaco badan oo markaa waxaan kusoo dhaafay markay aan meesha soo galayba katiinad kale oo aad u culus oo tii ka weyn iyo lugaha igaga xidhay awal tii gacmaha keliya aan ka xidhna gacmihii xagga dambe iyo xidhnaan intay soo wareejiyeen iyo xagga hore ii xidhay marka labadaa katiinadood marka dabcan clip waagii dambe soo baxay oo aada bulshada u dhex wareegayay yaa dabcan meesha lagaga duuban qiyaasaya halkaasaa lagaga duubay tooshkan lagu bixinahayo waxaasoo dhan waa halka waa daqiiqadii ugu horreeyey marka labadaa katiinadood ayay igu xidheen bes way iga tageen habeenkii halkii baan joogay 3 habeen bay meeshaas igu qaadatay marka subaxdii baan maqlay iyagoo magacayga sheegaya magacaaga rasmiga hay iyagoo Cabdikariin Sheekh Muuse aawe xagga banaankaan ka maqal nin leh marka waxaan gartay marka si fiican la socdo la garanayo mar hadda iyagu garanayaan in ay cadowgii aan la dagaalamayna Ethiopia inay meesha ku jirto gacanta aan ku jiro inaan mid Soomaaliyeed kaliya inaysan ahayn yaa fahmay maxaa yeelay waxaan ogaa Soomaaliyeedu inay iskaga jirto xaalad iska qasan maxamed bay iskaga jirtaa dalku madaxdiisa xor ma aha dalku xor ma aha dadku xor ma aha Soomaalinimadu ma shaqeynayso laakiin markaas maadaama dawladda Soomaaliya ay cusbeeda madax cusubna markaa joogtay oo dabcan madaxda hadda joogto markaa cusbeed ay joogtay rijo arrinta ka yar fiican ku muuqatay oo ma xilliga ima muuqanin waxaan aqaanaa inay dawlad goboleedyada cidda laga qabtay ay ku wareegi jirtay si degdeg ah gacanta Ethiopia marka maba aaminsaneen in lagu siiyo xamar dawladda Soomaaliya laakiin nasiib wanaag markii aan arkay xilligii dambe diyaaradii lagu soo qaaday xilli aroora la soo qaaday dhanka bidixda cadceedu u hays marka jihada aan ku soconnaa mar walba yaa fahamsanaa markaan arkay jihada aan u soconnaa inay tahay jiha Muqdisho wuu iga bacay wixii maartay walwalkii oo dhan wuu iga bacay mar haddii aan dawlad goboleedki Ethiopia ay iska maamulinaysa dawlad goboleedyada yararka aan gacantooda ka baxay oo jamhuuriyadda Soomaaliya loo dhanna iyo caasimadda ummadda hadda aan u socdo madaxweynaha Shaale la doortay oo qayb ka ah dadkii doortay campaign garantiis runtii waqti badan baan geliyay hanti badan baan geliyay macnaha isuu ku soo baxay in asagu soo baxo waqti aad u badan baan geliyay isaga ma ismaan naqaan aniga ismaan ma hor fadhisan laakiin aad baan ugu campaign gareeyay baarlamaan badan baan la kulmay saaxiibo badan baan sameeyay juhdi badan baan geliyay xataa xilliyada qaarkood meelo aad cabsidu ugu badan tahay oo aan ogahay ku arkay sirdoonka iyo madaxda Ethiopia yaan gelayay xilliyada qaarkood si aad macnaha isaga si aan ugu campaign gareeyo dad badan marka waan isbaranay oo baarlamaanka aad iyo aad qaarkood way ii digeen waxaa la yidhi niyo hawshaan adiga khatar bay kugu tahay marka dib uga bax meesha mar dambe ha soo gelin rag baa canaantay iyo gabadhaba oo dadkii baarlamaanka ahaa marka waxaan anigu u dooranayay hadalladiisina waan dhageystay xilli hore oo shaqo 6 bilood iyo maaqan wax saas soo qabtayna way fiicnaa aniga waxaan daneynayay Soomaalinimada ummadda Soomaaliyeed inay hesho hogaamiye daacada hogaamiye dalka waa la haystaa xoreyn kara hogaamiye dadku burburay dhisi kara hogaamiye dalkan baa isu keenay Soomaalinimadu ka go'anta qofka aan aaminsanahay inuu arintaas awood leeyahayna xilliga farmaajo markaas waxaan qaatay naftayda aan ku waayo waqtigeyga inaan geliyo sidoo isagu ku iman culimaan fadhiisay quraan baan bilaabay fiiri markaan quraanka dhameeyay
saddex jeer baan qur-aanka u dhameeyey isaga dartii oon mar ri ku khatay neef ari intaan soo iibiyey aan ku khantimay qur-aanka markii u dambeysaan fiiri yani ma aanan aniga qaraabo maanaan ahayn tol kale maanaan ahayn soomaaliba ahaa asaga iyo saaxiibada la tartamayaan dad fiican oo soomaaliya wada ahaayeen laakiin waxaan anigu raadinaya qof leh awood iyo karti iyo capacity ummadda soomaaliyeed dib ugu dhisi karo waxaa aniga waxaana qofka banaba doona waqtigeena kusoo qaatay qof marka dadka iyo dalka dib u xoreeya yaan raadinay intaas aniga iga go'nay marka waxaan is lahaa kan shaqadii loo baahnaa kii qaban lahaa waa kan markaan arkay inaan xaggiisii usii socdo waa nafisay anoo ka tiinadaysan baa diyaaradda laysoo saaray marka anoo ka tiinaysan intii layga dejiyo sawirada qabtaa sawirkaygu inuu u gudbo oo aad u cadhooda xataa waxba ka baqan ilan xogaal buu yahay inta la hayo magacayga meel walba ku gaaray waxaan ogahay in dad badan oo ama saaxiiba ama ururka ama qaraaba ama baarlamaanku inay arrintayda kala xiriireen waan qiyaasahay marka inuu amar bixiyo soo qaadan link yaa anuu aaminsanahay oo marka wax kastoo iga muuqdo oo maaragtay la igu sameeyo dhib ah inay danqi doonaan yaan aaminsanaa saasaan marka way xamar baa laga dejiyey xamar baa laga dejiyey markii ka degtay hab noocaa lagula dhaqmay garoonka intaanaan diyaaradda ka soo degin yaa saraakiishii la socotay laba nin bay ahaayeen ciidanka mooyaane laba askari iyo laba sarkaal bay la socday nin kamid ah labadii sarkaal yaa wuxuu yidhi oo runtii naxariis fiican ku jirta isaga war ninka waa nin soomaaliyahe soomaaliyeeyo oo ka furo buu yidhi gacmo duubka yuu yidhi runtii ninkaas markii horena qolyihii hayay buu ahaa ninkii soo kaxeeyey buu ahaa farac haddaa la yidhaahdaa dareen soomaaliyeed oo qiiral aan ka dareemahay intaan diyaaradda wada saarnay markii aan ka soo degnay diyaaradda muddaan saarnayn oo diyaaradda taagnayd oo baabuur baa la keenay baabuurka lagu qaadi lahaa jaamalaha la sugahayay markaasaa yaan degnay oo anoon gacmaha ka xidhnay caadi isaga lugeynay oo caadi u lugeynahay maxaad xidhan tahay ma dhar baa lagu keenay maya waxaan xidhnahay waxaan xidhnahay sarwaal iyo shaati dib lagaa keenay oo kuwaygii kamida oo iyagu ku keeneen ayaga mala boorsadaydii bay igu garab wadaan iyo moobeeladii wixii baa laygu garab wadaa marka laysoo qaadahay waxaa la ii keenay xabad sarwaala iyo xabad shaati waa saca gacadda marka diyaaraddii baan kasoo degnay baabuurkii baan u nimid cawsaydii fiicneedna markaa luqunta ii saaran tahay garabka ii saaran tahay oo de markaas xabsiga intaan ku jira huwasha baan uga maarmaynino waan xafida waan ilaashanaya iyada si gaaraan u ilaashanayay marna aalad igula dagaalamahayay ahayd marna dhaxantaa baan ka huwanahay ado marka meeshii waxaa la keenay godka jilacow meel la yidhaahdo xabsiga aada u dhib badan dadka aan ugu tegay dad aada u silacsan bay ahaayeen suuliyada intii saxaaradii iyo biyihii soo baxeen bay banaanka yay yimaadeen banaanka kore yay maraysaa fiiri waxyaabaha yaab kale bay ku jirtaa dadku markay u socdaan waxay sii dhex qaadayaan biyihii iyo saxaradii iyo qashin baa lasii dhex qaadahaya waxyaabaha aan ku arkay bay kamid ahay meeshaasaa la geeyey qol baa keliga lagu xidhay qolka camera ku xidhnay mar dambe aan arkay inay cameradu ku xidhan tahay oo dhaqdhaqaaqayga halkaa lagala socdo adugu halkaa 3 habeen yaa lagu hayay wixii la su-aalay iyo qaabkii layla dhaqmeen horena waan u sheegay markaa meesha kugu imanaysa wax ku su-aalaysa waa laamihii sirdoonka un mise cid kale oo madaxa ku timid maya waxaa ii imanayay horta ma garanayni taliya xabsiga xilligaas wuu joogay ima iman laakiin waa la ii geeyay isaga waxaan isleeyahay wax badan ima una weydiinin wejigayga inuu barto yaa maxaan u samaynaysa isaga dadyow kale way yimaadeen
oon isleeyahay ma ahayn madax sare dad hooseeya ee iska ahaayeen magacayga iyo weydiinahayo waxaan macno weyn sii lahay maalinka la keenay jamcay ahayd isla galabtii oo sabtigu soo gelaysa waxaa la geeyey meesha dambe baadhista CID ha ninka dambe baadhaha waa qolada sirdoonka ninkaasaa la ii geeyey marka wuxuu ugu horreeyey uu weydiiyey wuxuu ah anaa waxaan ku yidhi garas ma adiga ayaga ugu yidhi gurigaa tag oo ninka garas la yidhaahdo u tag marka intaan soo hor istaagay waxaan ku yidhi garas ma adiga markaasuu yidhi haahe qalbi dhagax ma tahay marka ma miyi baan ku yidhi magacaaba igu yidhi magacaygii hore gaalkacyo waan bedelay ku kala sheegatay cabdi muuse cali baa la yidhahdaa baan ku yidhi cabdi muuse cismaan baana la yidhaahdaa cabdi muuse cali lama yidhahda marka caligaa khalada caligaasa awowgeyga kala haye waxaan macno lahayn oo qolamaa tahay yuu ka bilaabay yaad ka tahay xageed ku dhalatay xagga futuy wad caruur ma leedahay imise weeye imisaa wiilala imisa waxaa oo macnaheedu yahay mar kalena aada weydiisid inuu caruurtiisa sida u sheego xaas maxaad leedahay waa mar kale haddana aad dib uma weydiisid waa waxaan macno weynsi lahay marnaba ima uusan weydiinin waxaan ka shaqeeyo marnaba ima sheegin cidda isoo qabatay iyo danta laga lahaa iyo waxa dambiga lagu haysto maalinkii ugu dambeysay buu wuxuu yiri waxaad ku eedeysan tahay inaad tahay gudoomiye ku-xigeenka oo wanalef saas igu yiri waxaan ku yiri gudoomiye ku-xigeenka oo wanalef mi gudoomiye ku-xigeenka oo wanalef anu waa naqaana dadkuna way yaqaana nin qarsoonna maaha dib u laabo oo soo raadi baan ku yiri midda kale oo wanalefnimadu iyo qofka oo wanalef jamhuuriyadda soomaaliya ma dambiilu kay oo wanalef ma dambiba mise waxay qabiil baad weydiinaysa ilaa markaan marka qabiilka aad weydiinaysa iyo magacan oo wanalef labaduba ma dambiba markaas iyada xilliga aad joogto hamigii hore ee markaad muqdisho kasoo degaysay aad qabtay waxa ma iska bedeleen ha subaxda la keeno jamco ahay habeenkii galabtaas markii aan la yiri garas u tag inuu tagay waxa uu ku hadlay waan iswada bedelay dhammaan rajadii oo dhan way ga dhamaatay rajadii aan ku socday ee qabay dowladnimada Soomaaliya iyo madaxweyne daacada iyo madaxweyne Soomaaliya jiradii waxaas dhan way dhamaadeen waan xaqiijiyay saacada madaxweynuhu inuu san ahayn qofkaan moodayn dawladdu inayna ahayn taan moodayn rajadu inayna ahayn sida ku tala gashan wax walba in ay 100% wixii ka bedelan yihiin waa ku soo baxay waxa ii soo baxay galabta jamcaha markii la yiri u tagaas iyo wax walba yaacada sida ay wax walba u dhamaadeen waan u filahay laakiin wax ka badan waxaan islahaa muddo waxay ku qaadan doontaa laba xaalaba waan filahay haddii la rabo Ethiopia in la iidiibo inay ku qaadanayso waqti ka badan inta igu wareejiyeen oo ugu yaraan 20 beri bil oo kale way ku qaadan baasna inay ku qaadan banaamsan ta kale ee iga badnayd in ka fikirayo waxay ahayd dowladda Soomaaliya inay dhig doonto bacdama aan anaga ummadda Soomaaliyeed madaxdeedna jamhuuriyadda mas'uul ka nahay ninkan anagu aan gacanta ku hayno dalku sharciga maxkamadu leeyahay anaga maxkamadaha naga saarayn anaga maartay gacanta ku hayna marka mid kale kuma weyn waxa Soomaali waa nin Soomaaliya wuxuu ku eedeysan yahay waa in Ethiopia la soo dagaalamay Ethiopia qof aan la dagaalamin ma jiro dawladdan dagaal hore gashay yani 77 iyo 64 kiiba dagaal la soo galay xilli dhow soo gaadhay waa la soo galay marka in aniga la weeray in Ethiopia la dagaalamay ummadda Soomaaliyeed sharaf bay u ahay
dal baa ka maqnaa ummadda soomaaliyeed ay leedahay oo etoobiya gacanteeda ku jiro oo la gumaystaa 15 milyan oo soomaaliya la gumaystaa soomaali baana ayuu ka maqan yahay dalka iyo dadku marka waa loo soo dagaalamay macnaheedu waxa weeye haddii etoobiya in lala dagaalamayo ay dembi tahay dadkan baarlamaankan iyo saraakiishan iyo dowladdan oo dhan yaa dembiga igula jirta haddii dembi ahaa in etoobiya lala dagaalamo dadkan oo dhan baa dembiga igula jira soomaali oo dhan baa dembiga igula jirta haddii aynan ahayn ummadda soomaaliyeed waxay ahayd sharaf iyo sumcad way soo dagaalantay welina waxaa laga aaminsan yahay inay tahay dad ka maqan yaho cadowgoodii ay yihiin qaanuun buu dalku leeyahay xeer buu dalku leeyahay sharci buu dalku leeyahay dastuurka dalku wuxuu qabaa in dal soomaaliyeed gacan gumayso ku jiro soomaalina midaysan tahay shan soomaaliyeed qayb ka midana ay tahay ogaadeenayeen in la xoreeyaayo oo soomaali la soo keenana waa waajib muqadisa macna dareenku saas u yaallay marka wax badan marka nooca u yaalla filanaysa waxaasoo dhan waa ii muuqanaya runtii wixii oo dhan inaan kooxdan ku soconin waan arkay way ii soo baxday inay yihiin koox cusub oo soo korortay oo dabaqoodhi ah si rasmi aan u xaqiijiyay dabaqoodhigii jigjiga joogay iyo kuwii dowlad goboleedyada joogay iyo kuwan filla Soomaaliya hadda joogaan inay afar dabaqoodhi inay yihiin kaliya yaa ii soo baxay sida xaqiiqada rajadaas way dhamaatay waan xaqiijiyay inay isku mid yihiin waayahay halkan Cabdikariim marka lagu hayay ee xamar lagu hayay inta aan lagu dhoofinin qofkii ugu sareeyay ama title ugu sareeya lahaa ee kugu yimid xabsiga kuma ma xasuusta qof igu yimid xabsiga ama dadka su'aalaha ku weydiinayay ama ku soo booqday cidii ugu title sareysay nin baa mar ii yimid ugu yiri waxaan ahay cornel military ka tirsan oo taliye guud aan igu yiri muusan labisnay nin kale oo yar baa la socday oo darajo kabtana labisan ninka kale ee yar ayuu waday ninkaana waxa loo soo diray ka yar baa wuxuu yiri waan qaanaa Cabdikariim Sheekh Muuse ninka leeyahay isku meel baan ka soo jeednaa waan qaanaa marka xurasha lagu soo helay asaga intii la soo dayday baa la soo helay kiibu soo kaxeeyay si uu ii horkeeno u yiraahdo fiirun isagii dabcan intii bay ninka mar baan arkay ya ka yar la socdo ka yar waa ugu jira ka yar uu la socday mid yar oo la soo dhisay oo la soo abaabulay buu ahaa runtii oo qayb ka ahaa waxyaabaha canaasiirta qofka wax ka sareeyay maaragtay taliyaha xabsiga oo aan garanaynin title-kiisa darajadiisa laakiin taliyaha xabsiga way markii lagu qaaday xamar laga qaaday ma halkaas lagu wareejiyay sirdoon Ethiopian oo ku qaaday mise Soomaalidu ba hadana ku dhoofisay oo xamar ka dhoofisay waxa iigu yimid meeshii subax aroortii laba qof oo taleela soo xidhay habeenkii oo igu yiri waxaan ahayn darawaliin damaaqan godka jilaa waxa darawal laga soo doonay way darawaliin lagu qabtay baabuur laga soo dajiyay baan hagaadhaan dad iska yar jiro weeka salaad subax markaan tukanay baa ayagay intii loo soo galay laga saaray aniga meesha la igu dhaafay daqiiqada yar kadib waxa ii soo galay ciidan aan hubaysnay yaa ii soo galay istaag bay igu yiraahdeen labiso waxaan u qaatay in maxkamad lagu geynay aan ka ballansan oo la geynay haddana waxaan arkay xilligan inuu san ahayn xilli xafiis maxkamadeed furanta waxaan u qaatay in la igeyn doono xabsi aan kana ahay haddana waxaan sir weli waa xilli hore su'aalaha markaan isweydiiyey kadib waxaan dib u qiyaasay sida ay wax u dhaceen inay wax u jiraan istaag markii la yiri waan istaagay mara aan tayda ahayn maxuusayda aan ahayn oo kale oo dheeraad ah tayda baa igu filayday ee ku siiyay yaa ma igu qabteen gacmaha xagga iga qabteen gacmaha bay iga xidheen ilaa halkaas ay soo xidheen gacmaha xoog bay u xidheen dibna way xidheen way xidheen aad bay xidheen waxay yiraahdeen way soo saareen hidda markaan marayno yaan dhankan midigta fiiriyay markaas waxaan arkay taliye xabsiga oo halkaa taagan oo soo eegay oo isoo fiirinay mid baa hor socdo oo saa ay wada halkaa saa markaan u fiiriyay buu canaantay oo war ninka indhaha ka xidha in la isaaray inuu arko kontaroolo xaqiijiyo uu rabay shaqadii inay fushay laakiin inaan arko yaa isaga dhib ku ah aad buu canaantay war ninka indhaha ka xidha buu ku yiri
macawistaydii tunka ii saaray yaa indhaha lagaga xidhay indhaha lagaga xidhay waay si saa loo qabto baa lagu kala jiiday waay jarar lagu sii waay jaranjara marka laga dejiyey dee nin indhaha ka xidhan oo jaranjaro waa saas markaasaasaa la ii tuuray oo marba halkaa kusii dhac xagga ku dhac xagga ku dhac xagga ku dhac baabuur yar baa la ii geeyey gal baa lagu yiri baabuurkii baan saa u taabtay dee ma arkayn moogtay daaqadii meelahan aan ku dhuftay madaxa oo waa saas aa lagu tuuray baabuurkaasi noociisa ma arkayn tirada dadee saaran ma arkaynin waa la waxa loo ciyaarmays waxa la wuxuu yahay kama waay sidii baa lagu soo kaxeeyey wadadii lambar 4 yaa la soo qaadsiyo dahray aanu aqaan sida ugu socdo baabuurka iyo xasaradaha u galay meel walba waxay dhigay dhagax weyn oo saan xawlu baabuurta ugu socon iyo waxa uu sameeyay waxyaabo kudad dhaxdo oo baabuurta ka istaagtay laaxlaxadka badnaa iyo ka dhac ka degtani wadaan garanay inay tahay tii lambar 4 iyo soo qaadsiiyeen waa soo socday qiyaastii ay ii jirtay lambar 4 wareegi lambar 4 jidka ka leexan jiray airportku waa iska qiyaasanayay waan jeclaa in intii in ka badan baabuur ku socdo oo meesha airport ka garamaro waan jeclaa nasiibana halkii uu ka leexday check point baa halkaa ku yaalay oo ku dhawaa check point-gii anoo isla waa gaadheen hadda ayuu sidii noqday uu istaajiyey way isu sheegeen marka waan soconay meel kale haddana check point kale yaa sii marnay markaasoo askariga wuxuu yidhi xagee ka timaadeen af ingiriis bay ku wada hadleen magaaladan ka nimid shaqaan ku soconnaa bay yidhaahdeen mala aqoonsiyadoodina way tuseen shaqana waan ku soconnaa bay ku yidhaahdeen waan gartay inaan marka wax soomaali la yidhaahdo aan ka soo dhammaaday halkaasaan ku xaqiijiyey baabuurkii wuxuu meel buu ila istaagay markaasaa waxaa meeshii noogu yimid baabuurka laiga soo dejiyey baabuur kalaa la ii kaxeeyey marka runtii taa dambe markay kaa dambe aan sii gelay yaa waxay ahayd arrin iyaduna iska cajiibaho dareemkaygu markiiba uu tusay inay meesha waxa taagtaagan ethoobiyankii daafidoodii baa i urtay urti fooshamayda abxaarada ku aqaan daafidii iyo basbaaskooda qashinka iyo qarmuunka yaan durba dareemay horey waan u socday baabuurkii baa la geeyey urti way sii badatay ya lameel xaraama dhex socdaa basho way sii badatay oo inaan soomaaliya halkaas isku faaruqinay waan fahmay suudhi oo dhan markaan arkay inay tii amxaarada ta hadal ma jiro waa la wada aaminsan yahay waa xaasoo dhan waa laga yimi meesha adugu waxaa gacanta ay qabtay markaa oo qoladii i waday qolo kale igu wareejisay markaa diyaaradii maydaan gaari kuwaa markay igu wareejiyeen baa labadaa dhinac waxaa iga galay niman ciidana yaa iga galay nimankiibaa marka yiri cagtaydi intay kor u qaadeen bay jaranjaradii saarantii kala qaadeen oo iji waralaay waxaa weeye igar waralaay bay dhahay iji gacanta waa kor u qaad af amaariga ma aqoonin xabad wax yar baan ka aqaanay xilligaas xoogaaga aan aqaanay halkaas markay xamaar ku hadleen waa bilaabatayba kor u qaad lugta xagga markaas kuwa diyaaradda yeesho buuxdaan u galay way sheekaystay halka intaynaan dhaafin markaa lagu qaaday waxyaabihii aada usoo baxay dadka soomaalida aada isula dhex mareen waxaa kamid ahaa waxaa la yidhi cabdikariin marka garoonka diyaaradda laga saarayay wuu dagaalamay oo dabcan dad baa arkay oo kusoo yaacay oo waxaa la yidhi waa nin burcadan soo qabano arrintaas ma jirta markii ay iga soo dejiyeen gaadhigii hore markay iga soo dejiyeen aniga dee ma dagaalami karin waa saas nin baa nabar igu dhuftay ma aqaan nabarkaa wuxuu la jeeda nabar weyn ma saa maha wax gacantiisa fadi waxoo ha yuu igu dhuftay
halkaa meelaha nabar igaga dhuftay waay ninkaas anigoo aan arkayn dhanuga iga jiro yaan anna waxaa yaan marka meel badnaan oo dee dabayla waxaa laga yaaba ninkii xagga jireena xaggaa lugtabo marka ninkii waa la yardaydayo waxaan taabtay ma jirin way diyaaraddii marka dad badan ugu gasheen ciidan baan ugu gal ciidankaas way sheekaysteen way qosleen waa marqaameen mayna iska weydiinaynin magacayga intaan ka maqlahayay marka laakiin aad bay u qoslayeen way qosleen si fiican bay u qosleen haddii inay qosolka hore ugu sii socday inay markaa bilaabeen ma aqaane niman si fiican u sheekaysanaya moraal fiican oo qoslay yahay sax markaa ma Soomaali baa mise maya maxaare ha waxa ku hadlayaan oo dhan afka amxaaradu ah halkaas laga qaaday Soomaaliya halkaas yaa isku faarujiseen intaan anigu de xusuusnahay meesha hore ee baaburka laga wareejiyay marka laga wareejinayay aan gartay inay wareejinayaan waxaan ku yiri meesha adii wadaan soo ilaahay ma joogo in aan filayay inuu sanbelo shaaha ama la socdo oo waliba aaminsan qofka gaariga darawalka ka hay waday inuu isagay wasadaan aaminsan ama gaariga uu la socdo isaga iyo safiirka Itoobiya u jooga xamar u jooga labaduba gaariga way saarayeen xogta aan helayo markaan ku yiri meesha adii wadaan soo ilaahay ma joogo wuu yiri ha wuu ugu filan yahay baan ku yiri ilaahay wuu ugu filan yahay baan ku yiri iyaga erey wax isugu kaana dambeey waa inta ilaahay wuu joogaa iyo wuu ugu filan yahay idinku mas na kala kaxay jawaab damana kama bixin maya hadalka ugu dambeeyay in kaga tagay nimanka Soomaalida kaas ah wax kale ismaana وهذاك أدب ما صنت هاي مدن عبد الكريم شيخ موسى طبعا وحان سلاهي وحكو فلان وحيا به دعي وحان أضن الله وحيا مهمة حمر إيو قال كعيو أنت كدم بيسي طبعا مقالة بدن وتكرشة كيسي بتشرتا وقتها إنه ديرانا يهديان سيودنا واتكتي والوجي وحدي لها وايد عين دباتوين كصامر لهذا وصامرتي فلله الحمد وتصبح ذي marka aad soo baxday Nairobi timid iyo intii kale aad meel kale ama dhulka Soomaalida aad socod ku soo maraysay dawladii Soomaaliya ee jariimada ka gashay maxaa dambo idin dhaxmaray horta qoladaas xabsiga inaan ka soo baxa ayaga waxay arkeen inay burburkooda way waxa isku dayeen iyadoo maxaabiisii Itoobiya isbedel ka dhacay lagu sii daayay aniga in xabsiga la igu sahay way gacanta tikrayga inaan ku jiro wareejiyaan tikraygu laba xaalan mid ay yeelaan inay khaarajiyaan iyo inay hayaan heshiis intaas ku kala ha way ii muuqatay arintaasi markii la arkay in maxaabiisi la sii deynay kooxda gacanta igu haysay xabsiga hore ku jiro way iga saareen way xabsi kale iyo meel kale ay dhaadhiciyaan way halkaas aan kugu haynaa bay igu yiraahdeen way muddo kooban way meeshaas markaan ku jiray 17 bari iyo wuxuu yiraahday meesha waan ka kaxaynana meel kale yaan ku geynina way 17 bari aan meesha ku jiray waxaan helay chance inta war ka badan way masaajid yaro noo dhow yaan waxa la ii ogolaa inaan ku soo tukado way waardiyihiina waa laga qaaday way laakiin dhul aan aqaanana ma meel laga jiro waa dhul aan garanaynin meel la iga jiro laakiin sharcina aan kala cabiranta jahadu way kala cabiranta way jahadu waan arkaa bari iyo galbeed iyo heblaayo waqooyi waxaan waan arkaa waasaas laakiin meesha ay tahay ma aqaan meesha ugu horeysay laga soo dejiyay inay waqooyi jirteen bari jirteen ma kala garanaysa meesha hore laga soo dejiyay inay magaalada ka saarayd koonfur galbeed wuxuu ahaa airportka ciidamada ee la yiraahdo Dabrasayd baa laga dejiyay way meesha hadda la igeeyayna Dabrasaydka kama fog وآجي دبرسي ما قاعد يسنا لكن وآج كله واساس ينشوجا
markaan dhabrisayd ka degaynay ma garanayo dhulkii Soomaalidu jahadu iga jiro ilaa sabab anu hore uma aqoon waa saas galbeed baa la oran jiray ma gabal dhac baan ka jirnaa Soomaali ma waqooyi baan ka jirnaa Soomaali ma garan karo way marka meel la aaminsan yahay inaan ka baxsan karo ma aha waxa iga qaadan marka culayskii iyo ilaaladii tirada badnay way qolo aan isleeyahay waa uun sirdoonkooda ay dhex keeneen halkaas aan iska joogay way masaajidkan ku tukan jiray waxaan ku guuleystay inaan maartay dad ka dhaxelo meeshaas dad Soomaali ah ka dhaxesho inaan ka dhaxelo way inaan ku guuleystay way wareystaan isuma sheegin ayagu waa wareystay sida yihiin meesha degan yihiin qaar baa macallimiin quraan qaar baa degan meesha degan wana sheekaysan markaan salaada tukada quraan akhriyaba nin wadaadoo fiican oo masaajidka u badan bay ahaa way waxaan ka isticmaalay culays weyn oo xagga xabsiga kuma saar culays weyn xabsiga ma saar way laakiin de ilaalada way iga waa aaminsanay inay la socdaan dhaqdhaqaaq way studio toonbari markaan meeshii joogay yaan galabtii 18 soo geli lahay ay yimaadeen waxa ila joogtay iyaduna gabadh xaaskayga oo muddaba oo halka igu timid oo ila joogtay way waxay u yiraahdeen intay galabtii yimaadeen bay yiraahdeen bari baan meesha ka qaadayna gabadheena waan ka diraynaa way marka meeshaan gabadha u diri lahayn bal sheeg oo xagee u dirnaa gabadha marka waxaan ku yiri aniga gabadha ma ka soo tashanay meesha ugu fiican aad sabab mar hore oo xanuunsatay dad baa loo geeyay Soomaaliya oo dhowr bari ay la joogtay marka inay qoladii ay u tagi oo kuwa raali ka tahay in wadankii loo celin wixii la yeeli lahaa anaa ka soo tashanay way biris waxay yimaad way aniga gabadha waan tashanay waxaan u sheegay inaan rabo inaan baxsado iyadana ay baxdo baabuur baan ku keenaya boorsooyinkeena oo dhan baabuurka ku qaad tag qoladii u tag way gabadhu shaqo fiican bay sii qabatay oo maray xaafadaha tagtay mobile yar ku keentay soo heshay oo yar intaan leeg way lambarana way soo qortay way marka oo dad bay hoos kala xiriir yar hoos ay lahayd intii muddo ahayd xiriir yar hoos yeelahay way sidii baan ku heshiinay salaadii subax markaan tukaday waxa ii taalay 3 kitaab oo quraan oo gabadhuna qaar ay keentay midna hore aanu sii haystay way markaan tukanay baan tagay saadkaan aadayaa waan ku yiri qoladii 2 kitaab baan sii qaaday saadkaan tagay 2 juz oo quraan aan akhriyay way 2 kitaabna masaajidkaan dhigay way salaatu duha 2 ragcadood oo sunnah waan tukaday way ilaahay baan waxaan weydiistay inuu maanta igu guuleeyo nasiib fiican inuu ilaahay siiyo oo iga heliyo cadawga way anoo isku kalsoon baan tagay meeshii baabuurta taksiga oo aan ka fogeyn masaajidka yaan tagay way baabuur anoo la heshiinay iyo yimaadaan ayagi ninkii xaafadda lahaa mas'uulka ka yaa igu yimid maxaa kartaa gaari waxaan ku yiri gabadha inaan dirno yaan qoladii ku tashanay marka gabadhaan diraya qoladii shalay saasan isku ogeyn gabadhaan diraya marka suu yeema ayagu nimankii ma nin badiri gabadha haabaan ku yiri awalkeena socon ku yiri namar qoladii buu wacay markaas wuxuu yahay ninkii gabadhii buu diraya oo alaabta uu raranay ayaga baa marka telefoonkiisa la igu dhibay ila hadleen maxaa u yeelaysaa ugu waxba hadeen gabadha nisub waxaan ku yiri anigu aniga maxbuus ee gabadhu maxabisma way hadii ayadu dambiila tahay maxbuus tahay xaafadii qoladii bay tagi iyadan u diro ka soo qab si cad u soo xira iyadana way dikana ana maxbuus aniga idin sugay iimaan ayadoo wali buuqi taagan yahay baan boorsooyinkii iyo boorsooyin culus yaan soo qaaday baabuurkii baan saar way baabuurkina dhaqaash baan ku yiri way
wuxuu igula heshiiyey baan gabadha u sheegay oo xogaa lacag haysatay si lacagtiisaan ku yidhi baabuurkii markuu dhaqaaqay oo iyaga kuwii guriga xaafadda jooga anaga ila murbahayaan yaa waxaan ku yidhi ookiyaalahaygii yaan masaajidka kusoo iloobay ookiyaalahan soo qaadan masaajidku marka waa meel iska dayacan oo jawaanaha korka kaga dayran oo xaggaa laga geliyo xaggaa laga bixiyo maalmihii aan meesha ku tukan jiray masaajidkan waxaan arki jiray buur xaggaasoo kale naga dad lugaha kasoo dhaadhici jiray oo dhankaa kasoo dhaadhaca waxaan qorshaystay intaan masaajidka sii maro oon kasii baxo buurtii dadku kasoo dhaadhici jiray inaan ku baxo oo dhulkaas waxaan maraynaa dhul beerilay oo muddo lagu dhex lugeyn karo inuu yahay masaajidkii markaan galay ayaguna xaggayba iga soo fiirinayaan yaan xaggiisa kasii baxay aad baan u dheereeyey luuq baan ka wareegay wadadii cabirkaayada buurta durbe laga fuulay ma maran xaggaan maray buurtii baan ka dhaadha buurtii markaan xagga shisha ka maray roobna wuu daada-ahay waxaan arkay magaalo weyn oo tan aan ka imid ka weyn oo hortayda ka muuqata magaaladii baan aaday aad baan u tillaabsanay dhiiqu dhulkahayo biyaha soconay wixii baan dhex orday dee xagga damaan filaya in laga daba orta tagaasi meel taagtaagan baanu imid markaasaan waxaan ku yidhi waraa tagsiil he markaasaan iqaad xaggee ku geeyaa meesheen booli makaayil meel la yidhaah halkaa igey waa meeqa waa 200 oo bir haya nasaar baan ku yidhi anu marka lacag mooto shilin ma haysto haddaan wax waaye banaanka anaka isku feerno xagga markaan tagno xaggaas isku feerno haddaan rabno laakiin meeshan aan dhaafo haddaa saacadan ay xidhan waxaan isleeyahay haddaad wax kala weydo saacadan aad siisid waxuun baa ii qorsheys meeshaan kusii dayn telefoonkii gabadha yaan ka soo qaatay markii hore oo la hadhay lambara ay siisay yaan wacay dad kale igu sii xidhaan waxaan helay 2 nin oo fiican yar la yidhaahdo maxamed yare oo waa yar cumar yarana hadda waa la yidhaahdaa iyo nin la yidhaahdo jamaal warfa ninkii xuquuqul insaan nimankaasaan helay qoladii baan marka la hadlay soo baxday waan soo baxay xageen idinku imaadaa noogu dhiib telefoonka ninka darawalka ay yidhaahdeen waan isugu dhiibay way wada hadleen ma taqaanaa meesha magacaa la dugsigaas ma taqaana halkaa ku yaalla haa dugsigaas soo gaar halkaa noogu im iyaguna baabuur way soo qaateen halkii baan isugu tagay telefoonka baa soo qaanin idin awey waan taaganahay kaasaan wadan soo deg 200 bay siiyeen bartaasaan kaa orod dhumaal baati fakad baxsas anaa waxaan ku keenay qorshihii nimankii xamar joogay ay mareegeen baa noocaas farmaajo iyo khayre qorshihii ay diyaariyeen inaan dib aan u soo baxay inaan dib la ii soo arag baxay waayo wuxuu arkay inaan anugu imaado inay dawladooda ku ahayd burbur way u dhamaanaysa waxaa cadaynaysa sida gaarka laga karantiilay magaxa kale la siideen markii aan u tagay qoladii dawladdu way ila wareegtay ciidan booliis ah la hotel bal la keenay dawladdu waa la wargeliyay ninkan xeralaaliyaha guud burhaanu la yiraahdo oo qayb ka ahaa saraakiil ninkii way qariyeen nimanku ama way dileen soo hela xeralaaliyaha iyo group uu ku jiro raadinay yaa shimaal u sheegay inaan soo baxsaday gacantana lagu hayo marka meel bal la hotelka geeyay ilaalan hal loo sameeyo hotelka sidii baa la yeelay ilaala la saaray hotelkii la yiri hotelka ma ay geli karaan laamaha sirdoonka ma ay geli karaan bale qoladii booliiska ay amarka la siiyay markii dambe dawladda intaan saarnay ra'iisul wasaare saarnay burhaan oo xeerlaaliye saarnay dawladii aan si fiican isu fahanay xaaladaydii ay soo baxday waxaan saarnay ninkii taliyihii gacanta ugu hayay oo qayb kamid ahaa aduu rag badan bay ahaayeen rag gacanta ugu hayay dhowr nin bay ahaayeen laakiin runtii nin si fiican ila dhaqmi jiray aad iyo aad ila dhaqmi jiray ana waan u duceeyay maxaa yeelay dee ninaan dagaalamayna dhowr iyo 20 sano oon dadkoodii iyo xulkii iyo saraakiishooda annaga qabnay isaguna dadka nibo qabay aad iyo aad marka tigreebaaso oo tigreeb ahaa waxaa la yidhaahdaa gabar salaase wuxuu ku xigeen u ahaa ninka la yidhaahdo ninka ugu sarreeyay meesha ah Canada ay raadinayeen
Getachew Asafa yuu ku xigeen ahaa ninkaasu nin fiican oo si fiican ila dhaqmayba dhibaatada badnayd ee Cabdi Ilay ay ila maaganaayeen iyo dawladda Itoobiya qayb kamid ah ragii iga difaacay bay hayeen asaga Getachew Asafa ba in la jirdilay dadka ku badbaadiyay buu kamid ah in xagan Cabdi Ilay waxaan kula maagay adiga dadkii aniga iga badbaadiyay bay ahaayeenba Getachew Asafa iyo Gabre Salaasi labada nin baa runtii waxay ku mintideen in aan Cabdi Ilay xoog la igu wareejin way isku dayeen intii la qanciyo in aan tago oo Cabdi Ilay u tago oo nacnacaleeyo wixii gacantooda waxay ku hadli jireen aan ku hadlo culays 5 bilood ugu qaatay baa lagu saaray xaga juuleen iyo tahdiid badan baa lagu sameeyay ilaa Cabdi Ilay la ay keenay qolo uu soo diray dhowr jeer la ay keenay wiimid meel baa la igu geeyay xabsiga iguma iman laakiin meel baa la igu geeyay muxuu kala hadlay wuxuu igala hadlay in aan maartay meeshii tago 3 bari aan soo joogo dawladda Itoobiya waxaan ku heshiinay in ay maartay xil ku dhiibto hay'adda qaxootiga Itoobiya oo saldhig lagaga sameyn doono doolow in madax lagaga dhigo halka lagu maalgeliyo gaadiid lagu siiyo anagana dawladda waxaan isla garanay inaan jigjiga guriga ka siino baabuur badan ka siino ehelka agiila laayay tirada badnaa magdhow inaan ka bixin waxaasan dawladana isla garanay hay'adda qaxootigana aad madax uga noqoto dawladda waxaasan isla garanay wada hadalka oo wanalaf iyo Itoobiya Addis Ababa ka dhacay Nairobi ka dhacay doona inaad qayb ka noqoto si xal loo helo inaad qayb ka noqoto marka isagu waa intuusan imanin Nairobi wada hadalkii ka hor markuu la sagal la iikay waxay rabaan aniga oo la yaqaano oo wanalaf in haddana anoo ayaga ka safan lagu aan dhankooda ka soo saftaan oo wanalaf marka shucuubta Soomaalida ku kacdayna meesha ay ku niyad oo wanalaf iyo halgankeygii iyo ummadii Soomaaliyeed iyo taariikhdii iyo karaamadii oo dhan inay burburto waxay garan laayihiin dhowr iyo 20 sano seylada dhimashadan taagna oo nafteeda ka furi waay maxay tahay rashada aan hadda ka raadinaya waan la yaabay waxay ku hadlaayeen guriyaal lagu sii waxaan ku yiri Cabdi Ilayo guri 20 mitir markaad ogaadeen iyaga siiso aaw dalkii dhanaay ogaadeen iyo 10 dhowrka milyan deganeed u soo baabay inta kale wax ku marimiya 20 mitir guri aan ku siinaya raganimo ma moog adu qoladaas wuxuu ahayd barnaamij ay diyaariyaan marka qoladan Tigreega waa weyn ka badbaadiyay qoladan marka waxay yiraahdeen ninkan xoog lagu qaadi maayo maxaa yeelay hadii intaan qaadna asagoo maxbuus oo wixii raal ka hayn aan xidhno haddana uu jeel ogaadeen la geeyo inagana waan ku sharaf dhacayna ninkan kiiskiisu waa kiis caalami ah waa kiis ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka dagaalantay khatar kala ka imanaysa foolxumo kala ka imanaysa mas'uuliyadeena meel ka dhacdo marka inaga haynayna laakiin hal lagu qanciyo inuu meesha tago oo Cabdi Ilay raaco telefishin ka hadlo halay cafiye yiraahdo wixii sameeyo daraqdi marka isagu wuxuu raali ka yahay aan ku sameeyay halkaas ayaga la dhaafin way ii sheegeen in maarto culays badan marka arintaas adiga wax weyn ku ahayd aniga wax weyn ahayd in aan sidaas la ii gelin la yiraahdo waxaan raali ka in aan la igu sameeyo aniga waxay ahayd heel baya marka ninkaas Gabre Salaasi nin si fiican ila dhaqmayba markii dambe aan ka soo dawladda Itoobiya intaan saragnay aan ka soo laabteen saragnay ayadoo madax kale ila socoto yaan isugu meel hotel oo ra'iisul wasaarihi aan ka imido la soo dhisayo suud aan xidhnayo tay aan qabo adiyaabaysan waan salaanay markaasaan waxaan ku yiri hadda soo nin weyn miyay baan ku yiri markaasuu nin weyn baa tahay aad wii salaamay nin weyn baa tahay ina fariisi waan fariisanay waxaan ka codsanayaa saaxiibkay baa tahay waa isku soo xaqyeelanay wixii dambi ahaa ka galay oo dhan inaad iga cafido yaan ka codsanayaa waxaan ogaataa inaan ku hiiliyay waxaan kaaga hiiliyay dawladda Soomaaliya waa kaaga hiiliyay dawladda Soomaaliya waxayna yiraahdeen ninka 6 bilood ugu yaraan dib u haya haddaydan dilaynin markii hadda aan gacantanada ka baxday way ila soo xiriireen way aflagaadeen bisu xum bay noocaayeen waan isku dhacanay nin la yiraahday buu yiri kullane ku kalo la fadhiyay weydiinayaan kii muxuu ahaa leeyahay jooga qolada nisa
maraxaanka muxuu yahay bay leeyihiin saas oo dhan ha saasay leeyihiin waa fadiisa buu leeyahay ninkan iyagaa marka isweydiinaya magacii muxuu ahaa magacii buu u sheegay waan way caayay markii dambe waxaan idhi bu ima soo geli kartid Fahad Yaasiin 3 jeer buu ii yimid bu markay ugu yarayd 45 daqiiqaan wada fadhinay arrintaadana ka wada hadlaynay markay u yarayd baana 45 daqiiqo wada hadlaynay arrintaada Soomaaliya raalli kama ahayn inaad meeshan ka baxdo waan kaaga hiilinay inaan ku warwareejinana taas ahay adu markii dambe wuxuu ii sheegay in xataa in la ikharajiyo inay gaadhay marka nimankaas inaad la dagaalanto oo burburisay ka cabsanayaan dad ayaga hadda aad la dagaalanto oo burburisan iyaga dib waa gaadhaya laakiin aduguna wax badan ka faa'iidi meeshay ani hadda saaxiibkood meehi laakiin waxda ma tahay nin Soomaalida ku dhago wala isbaranay hadana baaragtay kulay dar xogtaas uu siiyay waan soo noqon doonaa su'aasha markaan hore ku weydiiyay dawladda Soomaaliya wixii dambe dhex maray bal dib baan ka dhigan waxaa jirtay intaad xabsiga ku jirtay Addis Ababa iyo area-daas maartay ku dhadhow mar uu ku yimid madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo dabcan aad sawir ka soo wada muuqateen xagee joogtay markaas xabsiga ka wada hadasheen Axmed Maxamed Islaan marka ayada madaxweynuhu xabsiga ugu yimid meeshaan ku xidhnaa ugu yimid Axmed iyo team la socday Addis Ababa ku xidhnaa xabsigu ugu yimid iyaga isi sheegay intay ugu soo kala heen bay ugu yiraahdeen Axmed Madooba ku iman wayna dhac jirtay oo mar kale waxa ugu yiraahdeen farmaajo yaan maanta ku geenina bishii Febraayo 2018 labadeedii iyo waxa ugu yiraahdeen farmaajo oo shirki uu yimid midowga Afrika yaa ku imanay yaa ku imanaya markii dambana subax dambana waxa ugu dhahan anaga ku geyneen maalintii ka dambeysay waxa ugu yiraahdeen intaan weydiiyay ninkii aan weydiinay waxa la yiraahdaa Salmoon waxaan ku yiri farmaajo leeyahay uu ku iman ama ku geynina away nasiib darro wuxuu ugu yiri iska daakaas waa qalbi caruur fiiri minimum wagaayay lamiso wax macnaheedu uu leeyahay ma jiro waa qalbi caruur iska daabi ilaa baan kugu dhaashay meesha durba la gaarsiiyay fiiri waa ninka Tigreega Salmoon baa la yiraahdaa Salmoon baa la yiraahdaa way is yaqaan wax faa'iido ma u laha waa qalbi caruur eraygaas adeegsaday afam xaarib ku yiri minimum wagaayay lamiso wax macnaheedu uu leeyahay ma jiraan waa qalbi caruur kii wara afam xaarib ku yiri kii dambu af Soomaali wuxuu ku yiri waa qalbi caruur adiga markaas farmaajo hadayba dhici lahayd in maaragtay ay say sheegayaan run noqoto xiseen teleg baad u qabteen aad la kulantay waxa kala hadlay hadii aad la kulminaay ma rabin farmaajo inaan arkay ma rabin waxaan isla haduu farmaajo caaqiba leeyahay intuu dawladda la hadlo xudheelaha war xataa isbedel baa muuqda aad wax sii deynaysaa warinkii gacantayda ku soo wareejiya aniga isiiya aan la tago madaxtooyadayda aan geysto aan xaalo taa waan ka filayay inuu marka oran xilligan dambe ee wax dhaqdhaqaaq yani xilliyadan dambe dhaqdhaqaaq dambe xataa ma waasaas bacdama muddo leeyahay taa waan ka filay aniga 8 baa la qabtay Agoosto 23 baa aniga la qabtay maalinka dambe leeyahay waan ku keenaynaa ama waan kugu yeedhaynaa oo ku imanna waa bishii February labadeedii marka waa meeqa bilood kadib waa 8 la qabtay iyo labaad waa 6 bilood mise 7 bilood yaa marka maadaama intaas aad hayseen marka waxaan isleeyahay inta haddaad hayseen wuxuu leeyahay igu soo wareejiyay shacbigeena kacay baarlamaankii xaaladiisu taagantay ummadii wax badan ay kacsan yihiin markay iiba sheegeen waxaan u qaatay waxay ka wada hadlayaan taa inuu sababta uu leeyahay warinka Allahayda waan ku geynina ama uu ku iman aawe sida igu xilligaaba oo isleeyahay hawshaas ku mashquulsay haddaan sarkaa marka waxaan isleeyahay wuxuu ku dhihi doonaa raallo oo dawladda waan ka wada hadalay inay ugu soo wareejiyaan waa la ugu soo wareejiyay waan ku qaaday meeshii baan israacayna sidaasaan u maleeyahay duwaagu ka daa qofka dhaalay xaqiiso isu boosa markuu baalkan ugu yiri warinkaas waa jiri iska hadalada markuu yiri asaga laftiisa ma qoonsada waxaan ku wareygan xun ee Tigraygo ninka Soomaaliga asaga ugu shaqeeyay muxuu heerka u gaarsiinay ha u baadilay
mu xataa xishooda aniga lafteyda moogta la yaabay adiga laftaada jir ka diiday ha ana waxa qof ka soo Soomaaliya agtooda xawo kama ahaba aniga yaa ka ixtiraam badan xilliga isaga xilliga intuu ii sheekeeyay buu wuxuu leeyahay Soomaali nin ka dambeeyay Maxamed Siyaad Barro nin fiican kama dhalanin buu leeyahay fiiri muxuu ku bartay Maxamed Siyaad Barre wuu garaacay Ethiopia waxay nin rag u taqaanaa ninkii garaaca arabkeeda dhulka dhig ninkaas ay nin rag u taqaana waana run cadowgiisa ninkii iska celiyaa nin raga ninka cadowgiisa isu dhiibe dadkiisa u dhiibe dalkiisa u dhiiba nin raga ma cadowga agtiisa qiimo kuma la qofkaas laakiin kiisa yaa qiimo ku leh ha ninkii iska celiya cadowgaaga inaad raganimo leedahay wuxuu ka garanayaa sidaad ula dhaqantay xumaanta uga jawaabtay u diid saas kugu qiimeynay oo ka gaarsiiyay ninkaas macna ma leh waa qalbi xaruur ka gaarsiiyay way Axmed Madow ku soo laabay Axmed Madow ku soo laabay warun Axmed Madow meesh buu ku yimid sidoo kale waxay ugu yiraahdeen Axmed Madow yaa ku imanaya aroorti way bari buu ku imanaya way marka waa is arkaysaa hadalka ninkii ii sheegay aniga oo aan wada fadhino yaa askari ordayay iridi ka soo galay markaasuu isaaga afxarig muuha way ka maxaa jira markaan soo dhaqaaqnay asagoo waxba noo sheegay yaa Axmed Madow soo galay way qofkii ugu horeeyay soo galay Axmed Madow waan yaabay way waan salaamay Axmed Madow way horay ma soo aragtay Axmed Madow inta xilliga maya sawir mooyaane si kale uma way aad iyo aad baan Axmed Madow markaan waan qiirooday runtii way markaan arkay hirda uu ka soo galay ragii la socday oo dhow ka soo riyay hirda markuu ka soo galay isaga soo riyay ha waan qiirooday way aad baan u qiirooday yani meeshan inay tahay meel rag wada dhashay iyo dad wada dhashay meeshii la isaga heelin lahaa waxa la isaga tari lahaa aad iyo la isku soo booqan lahaa loo halgami lahaa inay tahay isaguna uu kaalinta buuxiyay way markii uu soo aad baan u qiirooday way waan salaam isku salaam way aniga oo marka xoogaa qiira iska beenaya intaan dib u noqday yaa qolka ku noqdana ina fadhiisi way qolka yaa ku noqday biyo wajiga soo barshaday waa la fadhiistay waanu maxuus baan soo xidhay maxuus soo iska bedelay oo soo kacay waanu wada hadal Axmed Madow bidaan macna ii sameeynayay aad booqashadiisa wax weyn ku ah marka de wuxuu ila socday inuu ii sheegay xaaladeedana way iga wareystay way nimankiina Salmoonkii oo ninkii waday noole yimid yuu la hadlay oo wuxuu ku yiri ninkan annaga wada dhalanay ma adeer baan nahay haddii ay suura gasho suuliyadiisa aniga la wareegi dawladdan waan ka wada hadlayna dib inuu san idin kaga imanin ana damaanad qaadi waa hadday ii suura gasho dawladdan isku noqonaynaa way marka dawladda Soomaaliya ula jeeda maya dawladda Ethiopia tan Ethiopia way saas ula jeeda way ani agaar baan soo noqonay marka idinku wax dhibaato ninka u geysan waxba muusan Axmed waan sheekaysanay ugu laabtay wixii aan qabayno iyo wixii soo maray iyo say ila dhaqmeen wuu weydiiyay xadaaska ugu badan ee haysta waxaan u sheegay inuu yahay in la ii wado jigjiga oo leeyahay jigjiga tag haytan TV ka hadal dadka iyo afiyade halgankii dheeraaye oo wana inuu halgan baadilaha dad badan lagu xasuuqayo boqolaalan kuna yani dambiga iyagu galan in aan anigu la wareegto dambiga Ethioopiyaanka iyo canaasiirtooda ay galeen inaan anigu la wareegto tunka saarto waxaas ay raadiyeen kaas aad ku saaraya kaas aan u sheegay maxaad samaysay ugu yiri saadiyash waxaan ku yiri ma jaxjaxayo haba yaraatay wax aan iska bedelahay ma jiro anoo sharaf loo zaciimaha la soo qabtay sidaas aan ku dhimanay ama ku noolaan laakiin wax kale inay dhacaan abadan way sidaa ku adkaysay sidaadaas ku adkaysay way waan ku kalsoonahay inaad ku adkaysanaysaa ku adkaysay waxa yeel ma oran halka Arabiya ku adkaysa sida aad u hadasho taa ku adkaysay way ilaahay baa waxna dilo waxna nooleeyay waa saas Axmed Madow
wuxuu ii reebay xoogaa lacag gabadha ay igu dhiibeen $1 yay gabadhii u dhiibeen xaaskay ila joogtay oo waxyaabahan qoladii hore dee maaragtay geetaashu asafay wanaaga ii sameeyaan ba waxaa kamid ah inay gabadha xaaska ii keenaan raashinka ay dhibahaya raashin Soomaali caadi ah marna suuqa iga soo gado marna ii kariso marka aanu soo noqono marka waad soo baxdayba ilaahay baa ku soo badbaadiyay wixii oo dhan waa laga yimid maxay idin dhexmaray Soomaali halkan markaan mid waxaan ugu yimid dad badan oo diyaarsan oo dawladdu soo dirtay baarlamaanka aad meeshan u yimid madaxdii dawladda rag badan baa ka yimid Fahad Yaasiin uu yimid yar shaqo u joogay isaguna wasiirka cadaaladda Cabdixakiin Sheekh Xasan oo laakiin aan shaqadaas markaa u soconay shaqo kale u sii joogay meesha uu joogay wasiirka duulimaadka Omar uu joogay oo isagana dhinacay ka diraayeen Fahad farmaajo soo diray Omarna ra'iisul wasaare waxa soo diray Xasan Khayr yaa soo diray koox kale oo baarlamaanka ku dhex jirto ayaguna baarlamaanka oo saaxiibo gaar ayaga la siyaha ayagana waa la soo diray waxa soo dhan oo aad moodaa in la yiri hadduu qaar gaf qaar ha helo oo meelo badan la kala dejiyo intiiba ya dadaal badan sameeyay qaar kood waan saragnay dhowr jeer baan saragnay tiimamka intoodii badna waxay mar walba igu lahaayeen oo iska raacsanaayeen oo loo soo dhiibay fariinta ay wadeen waxay ahayd raali gelin iyo inaan xamar tagno ku kaxayaan inaan xamar geeyaan magdhow la isiiyo raali gelin la isiiyo intaas lagu xaalo yaa intaas ka sinaayeen qaar waxay leeyihiin dawladda waxaan go'aaminay in magtaadii inaan bixino waa isku qabanay qiimaha 10 milyan 5 milyan waxbaan niri aduu marka xagga saraan u badan qaar waxa uu sheegay waqti dilaala badan oo kalena way sameeyeen oo Kenyaatiga dhexdooda qabqablayaal badan oo kala la diyaariyay ma yara meesh warga waxaan ku yiri may waxa yeeshaan Fahad Yaasiin ka mid maaha ragaad kulanteen maxay baan soo galay aniga magaalada ma kala aqoon meel ay aan quraac tagno oo show qoladan aan saraacayno yey isku sixidnaayeen markaas ay quraac baan halka u tagaynay in mari aniga in meesha ku cusub baan waa saas hadii la yiraahdo baabuurkan full meesha aad la dhahaa waa aadayaa oo magaalada dhexdeeda aadiya marka maxayad baan aan soo galay quraac u soo galay maxayad markaan fadhiisanay yaa waxa noo yimid laba nin oo mid Fahad Yaasiin markaad Fahad ma garanaysaa dalabkii quraacda waan joojiyay ukadi aan ku iri iyagii baa yiri marka ma aan quraacana markaasana ma aan quraacana raalaha quraac baa la dalbaday ma quraacan anu teeshkii oo dhan baa isbedelay marka adigu Fahad ma horey baad aragto Fahad ma sawir horena waan ka hay Fahadna nina xiriir badan oo hore si lahayn baa waliba oo saaxiibana laakiin aanan bidaan ahaan soo hor fadhisan wuxuu u shaqeyn jiray oo madax ka ahaa East Africa Aljazeera waan soo wada shaqeynay saaxiibada bay ahaayeen Fahad xiriir dhinaca telefoonada aan lahayn siba waxaan aad iyo aad aan Jaamac Nuur kale aad u wada shaqeysay Jaamac Nuur iyo ninkii loo oran jiray isaga iyo Micraaj iyo yar abshir la yiraahdo hadda gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare yarka gudoomiyaha ku xigeenka ka abshir Bukhari ragaas oo dhan ragaan isa si waa u jirnay baa xiriir badan waxaan lahayn runtii ninka la yiraahdo Fahad waxyaabo badan buu marka waa intuu siyaasadda ku soo beerin ee intuu jasiira ah waa wariyaha xiriir fiican baan aadiya oo saaxiibtinimo raay fiican buu yulaha si fiican baan u sheekaysan jirnay wax ka soo dhinaca telefoonada iska weydiino meel fiican baan dhigi jirnay marka xilligii dambana markii aan aad soo maray ay ii sheegeen gataasho asafbal ninka la yiraahdo gabra salaasa iyo teamkoodii kaalinta uu ku lahaa hawshaydii لا حقر هرب بدن ما هيني واساس markan ugu dambeeyay mishinkan uu dhigayay waxyaabaha dadkaas inuu kamid aha markaan arkay markaan imina la ii sheego liyo dadkaas oo dhan baa joogay oo hawlahaas wada markaan hadana uu nala soo fariisay dadkii salaam ay magacaabeen waan gartay marka waxaan ku yiri
intaanan meeshaasoo dhan aadin sababtu maxay ahayd iigu dhiibteen cadowga meesha ku shaqeysanaysaan intaad noqotood xamar tagto sababta soo sheegaan buy waxa idinku kalif isagu markaa wax sababa ku sheegay ma jirta may wuu hadlay wixii dhacay way dhaceen waa qaribanay sheeko badan buu sameeyey waxaan ku yidhi may taa hadda diyaar uma inaan xamar tageen aniga keligay dembigu maaha aniga waad qabateen cadow baad ii dhiibteen waxaad ugu tilmaanteen inaan ahay argagixiso ummadda soomaaliyeed inaan ka abaabulahay khatar iyo dhibaato anuguna waktigeygii ummadda soomaaliyeed difaacadan soo geli xabsigii anigoo dhaawaca aan imid oo furunta Ethiopia ka imid yaad isoo mariseen anoo garda duuban oo Ethiopia aad ii dhiibteen yaad isoo mariseen sibdarray intiina ummadan waxa idinka galay ma jiro dhiig idinkama gelin dhaqaale idinkama gelin waxa idinku ka heshaan mooyaan waqti idinkama gelin ummadda Soomaaliyeed waqtigeeyo dhan baa u soo burburay markaas waxa dhacday khatar buu ku argagixiso qadiyadii ummadda Soomaaliyeed iyo halgankiina waxaad ku tilmaanteen inuu halgan argagixisa aad ku tilmaanteen 20 milyan oo halganka ku jirtay yaa waxaad saxiixdeen oo ku dhawaaqdeen in dilkoodu mar walba banaay maxaa yeelay waxaas waa argagixiso macnaheedu waxa weeye meel walba waa lagu dili karaa ummadda inta leekeed halgan u soo jirtay yaa waxaad saxiixdeen bar kastoo lagu arko in lagu dilo marka uu ka weeyahay dhibaatada aniga way ka weyntahay intaad noqotaan raali galin publica bixiyo waxa dhahdaan hawsha hadalkanaga noocaas ah wuxuu ahaa hadal khalad nooga dhacay cudurdaar baan ka bixinaynaa ummadii Soomaaliyeed iyo ururkii ONLF iyo ninkaas halkana wixii aan ku tilmaanay raali ha ka noqdeen sidaa ma aha inta kaliya dhah waxaan idinaysa markaa xamar ana iman baan ku yiri idinku anoo marti idinku ahay waxaan noqon doonaa qofka ugu horeeya dawladdiina garab taagan la shaqeey yaa noqon doona inta kaliya sameey faadintaasaan ku yiri marka waa hal shuruud wasiir kale la joogay Omar waan ku yiri isna waa ku yimid waa asaga iyo Faarax Macallin baa ii wada yimid si wada jiraan ugu yiri madax kale oo baarlamaanka oo aan tira badnayn oo dhowr qof waan arkay intii in laag baan u sheegay ilaa hadda halkaas aan taagnahay ilaa hadda halkaas dalku waa dalkaygii laakiin dembi baa dhacay wax xiriir toos ma kula soo sameeyeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu way isku dayeen Djibouti oo kala markii aan tagnay shirki Djibouti waxaan saragnay ra'iisul wasaare xogeenka Mahdi nin saaxiibkay oo fiican weey ninkii la jiray xoosh Allah naxariisto ninkii dhintay baadiyow madax badan oo ka socota dawladda waan saragnay waxay ugu yiraahdeen maalin aan shirka ka hadlay habeenkeedii way malaha wada hadleen madaxweynaha iyo ayaga marka subaxdii bay waxay ugu yiraahdeen madaxweynaha xalay waan wada hadlay wuxuuna codsaday in inaad xamar timaado martiqaad rasmi ku soo diray madaxweynaha wuxuu codsanaya arinta waxaan ka codsanaynaa inaan raacdo oo xamar aan wada tagno su'aal baan weydiiyay waxaan ku yiri qof argagixisa caalamiya ma martiqaadi kartaan intaad invitation u dirtaan martiqaad u samaysaan oo baaxi dhinka u dirtaan ma ku martiqaadi kartaan caasimadda Soomaaliya fil Soomaaliya ma ku martiqaadi kartaan وما أوجشين airport كي international airport هذا نعطي إنه كسر دق ما أوجش حوش جبريل بوحيلي مدحوينا رئيس الوزراء يوحيل ويا أضكته مركزا وحنكويري مركو رئيس الوزراء هو يرسل ويا أضكته مركوي يا وحنكوير أنا وحقيقة أنا دولة دين وأرجع حزة عالمي دي تقانا سبب أي أقول هذا محمد مركا أي أوران كرتاي حمر هيمات كمان هنا نقول هنا يرجع حزة تقانا حوش جبريل بوحيلي نكن ونجشر قونسية waxaan ku yiri marka inta dib isugu laabataan waxa dhahdaan waa kan shirar caalami ah ka qayb galaya waasaas baasaboorkayga fiiriya inta fiisa ku taal adduunka oo dhan baan maraya war khaladkii naga dhacay raalaha laga ahaado waan ku gafnay ninka iyo qadiyadiisa inta kaliya dhaha aniga waxba hay soo dirin martiqaad ana xawalay mari ha maxaad igu soo diraysaa maxaa aniga xamal igu martiqaadaysaa maxaa warba adiga xigtaan ana iman orda inta dhaha raali naga hubiya
madaxay gacanta iga saareen raallo hogaal waan dhahaynaa xaggaa markaan tagna annagaa ku soo wici doona annagaa xaggaa kaala soo hadlayne naga warsug bay wiilaa ordaan ku nimo waxay u ekaayeen markay meesha taga dhahay war waan ceebowne waa kanu aan wada hadal oo aynu waxyaabahaas ka bixino cudurdaar mayna ila soo xodhin nimankaa marka halkaas ay kala taagana okay maxaad is leedahay marka maxay cudurdaar uga bixin laayihiin in ay yidhaahdaan ninkaas waan ku khaldanay ama ururkiisii shaabadaan ku dhufanay waan kala noqonay oo khalad beh horta waxa ugu badan ay ka cabsanayaan waxa weeye haddii ay afkooda intaas ka soo baxdo in la yidhahdo haddee taga macnuhu waxa weeye dadkaaga qof kamida markaad bixiso ad cadow u dhiibto macnaheedu waxa weeye dadkaagii oo dhan inaad bixisay dalkaaga taaka kamida haddaad bixisana macnaheedu waxa weeye dalkaagii oo dhan inaad bixisay nimankana dadkoodii oo dhan bay bixiyeen hadday marka intay hadlaan ay yidhaahdaan arrintaa waan ku khaldanay geef bay ahayd raaligelina waan ka bixinayna inay sidaa ku tagaan horta ka yaabay waa nooc oo fulaynimo laakiin dhanka kale soo leesma oran kara hadday sameeyaan waxay u noqon lahayd sumcad bay u noqon lahayd iyagu ma aaminsaneen sumcadda cid kale helaysa ha heshee iyagu inay ku dhiman hayaan taasi aaminsan hadday afkooda ka soo baxdo in waxbaba ay meesha ku olina ay sidaa ku tagayaan ay aaminsan iyagu halka qodob bay ka fikirayaan waa hagaag aad baad mahadsan tahay daawadayaal qaybta koobaad ee waraysiga oo aad u dheer halkaas aan kusoo gabagabaynaynaa inta aan qaybta labaad isugu soo noqon doono nabadgelyo